qisas fara badan baa ilaahay quraanka inoogu sheegay qar boqortooy lagu ibtileeyay boqortinimadii la soo diristay diintooda kamay leexin waa nabi Suleymaan alayhi salaam qisadiisa akhriso hadaad leedahay anigu madax baan ahay oo zamanka ninka madaxu diinta islaamka inuu ku dhaqmo dadkiisana uu ku dhaqo way adag tahay hadaad leedahay nabiyullaahi Suleymaan alayhi salaam qisadiisa baa quraanku ku qeexay dhageyso akhriso oo culimada weydii boqor afartiin inay adduunka u soo talisay nin kamida ayuu ahaa waliba mulkigiisu ma ahayn mulkigan bini'aadanka kaliya ay haystaan mulki rabbaani abu hayu ilaahay baasiyay oo waxa kamida mulkiga nabi Suleymaan khalqiga adduunyada ku nool oo dhan baa la hoos keenoo loo sakhiray dabaysha ayaa loo sakhiray cafaariidiya jinka ayaa isaga u shaqaynaysay shayaatiinta ayaa aqaladana u dhisaysay badaha intay u dhaadhacaana jawaahirtii dhaymanka u soo saaraysay hadalka shimbiraha oo dhan buu nabi Suleymaan uu yaqaanay وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها boqortooyada ilaa halka gaarsiisa maxaad u malayn quraan hadlaysa hadalkeegi la maqashiye war boqor nuucay adduunka ma jira ma soo maray may hadduu soo marayna waa Suleymaan alayhi salaam cid kale ma nabi Suleymaan nabigaas mulkiga inta la ilaahay siiyayna ilaahay taacadiisu ma dhaafin ilaahay dhikrigiisa ma halmaamin hal maalin kaliya quraanka ilaahay ku sheegay fi suurati as-saad وعلى فرضه آد جعلا طبعا فرضها وان جعلها في كل الزمان فرضه هو شيء غالي فرضه سي وكل جري ايا سدا لو سو هرمريي با ليدي ساعد الهي ذكريسا او سمين جري وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار ساعد وحاجر الهي للمناجودو وقال لك هوريه قال لك دنبه ويان وانو قفك مؤمنكو قرتا ساعده وحاجر الهي ونوجيديو لا دونايو inaan adduunyada into ka imanno masaajida soo galno ilaahay u dhawaano ilaahay la munaajoonno saacadii dhikriga uu sameyn jiray rabbiga la munaajoon jiray ayaa fardihiisa sidaa loo soo hormariyay فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق وكي لا قرآن كو شيء فرضه با لهرمري وحوري فرضها هذه هرمريسان waxay iga mashquuliyeen ilaahay xuskii bay iga mashquuliyeen buu dhikrigi aan ilaahay xuskiisa aan qalbiga markaan dhikrinaya aan ka macaansanayay ayay iga mashquuliyeen kulligoodii soo celiyay buu ii soo celiyay kurka ka wada jarayay waxlii wixii daacadda ilaahay ka mashquuliyeen nabiyadu qoorta ka goynayeen inaga salaadan tukanaynay imise jeer baa dukaanadeenu naga mashquuliyeen dukaanadeena wali ma bixin ninkeeba u bixiyo oran kara dukaankaasi mar ali markaan salaada galaan ku sahwiya ee ilaahay dartii baan u bixiyay ma jira ma dhici karto fardihiisii uu ku xaragoon jiray ee waliba jihaadka uu ku gali jiray ayaa markii sidaa loo hormariyay waxay ka mashquuliyeen oo qalbigiisii ay ilowsiiyeen macaankii markuu ilaahay xasuusanay uu qalbiga ka macaansan jiray ilowsiiyeen markaa buu igu soo celiya ii soo celiyay buu oo maxaa dhacay soo celiya waa la soo wada qabtay qoorta ka wada gooyay buu ilaahay bay iga mashquuliyeen daacadiisii marka haddaad madax tahayna madaxda waxaa la doonayaa inay ku daydaan nabiyullaahi Suleymaan alayhi salaam mulkiga inta leegu haystay xaq ilaahayna uu ku gutay xaq ibn aadankana uu ku guto uu ku ilaaliyay baa la yiri xaq ilaahayna ma dayicin xaq ibn aadanku ay ku lahaayeen ma dayicin waxauna ka baxay adduunka isagoo nabiyo mursalo ilaahayna uu raali ka yahay aka quraanka ilaahay ku sheegay
استقامة مركا حتى طبقات كستو مسلمين تكمل كل لهذا هاي سادين توقسقنا لها الدليل بلغوها يا دليل هذا بكانا تهينا نبي أيوب أو دليل نبي أيوب سديد يتوصلوا بكانا هاو كده هزي في مرنا إلهي طاعة دي سيد دقرقي سمدينين ملك نبي رسوله والله اختباري تضبطي هبلوضو لها مركلي الله قوض الدلي أو نفط الله قوض قبتي وسك الصبري تضبطي ويلو لها أنا مركلي إسرائيل وسك الصبري باري هي تجارة دي حوله لها يودن مركلي الله قاضي وسك الصبري مركاسا جركيسي ولي حنون لقول ردي وسك الصبري حنون نوعية قاري وعلى جركي انتو دماضي هرقا يلا فاس كل دقن بس مركاسا وح اهلا وح اوصوها لحاسكيسي مركاسا قرابديسي كو يرادين اما مقالة ادقو نوغا بح اما انك وان كاغا بحنو ماي انا انيغا فضوضو انيغا تغيا يقولي اي تكوبيسي بنان كابي اسارتي جيد بي هوستي سدقتي سيديد يا 10 سنه اي علماء قار شيغان ايو جيد هوس جيفي صباحدii bay ka tagaysay magaaladay u soo noqonayso dadkii u shaqeyn jirtay aqaladay ka shaqeyn jirtay leeyahay wixii mushqaayad la soo siiyay intay soo ugu soo iibiso khubz ayay iyo idaam ayay markaa nabiga ugu keenin jirtay geedka hoostiisa markaas ay ku tiraahdaa ayuubow xanuunkan halka ku gaarsiiyay in ummadii iyo dadkeenii ay banaanka inoo soo tuuraan nabi ducadiisa la aqbala ayaa tahay ilaahay ma noo baridaha ka qaada xanuunkan oo dadka ku dhex noqonay markaa buu ku yiraahdaa 7 sano barwaaqo ku soo jirnay ma inta yar baan u adkaysan kara laanahay buu yiri barwaaqadii buu xasuustay isagu waa sunnada ilaahay daa'iman qofka u fiirsada ma inta nicmad aan haysanna ayaa badan mise inta dhibaatadu nagu dhacdo ayaa badan mid ka badan nicmada badan marka anbiyadu nicmaday eegeen mar walba deedna muncimka markaa way ka xishoonayeen ilaahay way ka xishoonayeen marka abu xaaskiisu ku yiri 7 sano barwaaqo ku jirnay ma muddada yar baan u adkaysan kari laanahay ayadoo magaalada ku maqan maalin maalmaha kamida labadii dad isaga ugu dhaweeday qaraabadiisa ayaa markay u yimaadeen sheeday ka joogsadeen baa la yiri mid baa yiri markaa war u dhawaanay meeno xanuunkiisu inuu nagu soo tacadiyaan ka baqaynaaye malaha dambi wuxuu galay ninkani dadku aynan gelin ereygaasuu markaa nabi ayuub maqlay kolkay ka noqdeen ayuu gurguurtay deedna meeshuu ku xaajoonayay markuu ku soo xaajooday geedkii uu ka yar dhaqaaqo xaggaabuu uga dhaqaaqay halkaabuu markaa ku ducaystay baa la yidhi ducadiisana waatan qur-aanka ilaahay noogu sheegay fi suurati alambiyaa waayuuba id naadaa rabbahu annii massaniya adurru wa anta arxamu arraaximiin ayuub calayhi salaam rabbigiibuu u dhawaaqay oo rabbigiibuu la munaajoodo u qayla dhaan dirto markiiba wuxuu yidhi ilaahu aniga dhib baa isoo gaadho itaabatee adiguna kuwa naxariista ka ugu naxariis badan baa tahee ilaahu dhibkaa iga qaad buu yidhi ilaahay markiiba ducadiisa waa ka aqbalay baa layidhi halkii uu joogay baa lagu yidhi lugtaada dhulka ku dhifo urkud birijlika 18 sano nin jiifay oo xanuunsanaa awoodda jidhkiisa ku jirta ee dhulka markuu harraatiyay biyo uu kaga keeni karaa waa awoodee yani adagu asbaabtii la kaalay weeyaan annagaa biyaha soo saarayne lugtaada yar dhaqaaji bas asbaabtan adduunyadan arkayno oo dhan nidaamka ilaahay baa ku dhex jira asbaabtan sida jirka bini aadanka ruuxdu ay ugu dhex jirto ayaa asbaabtan adduunka aad arkaysaa nidaamka ilaahay baa ku dhex jira marka nidaamka ilaahay isheennu ma qabanayso qudradda ilaahay baa caalamka maamulaysa lugtii buu nebi ayuub saa u dhaqaajiyey dhulkuu ku celiyey labada lugood dhexdooda biyo ka soo baxeen baa la yidhi laba iloodoo biyaa ilna waxaa la yidhi ku maydho ilna waxaa lagu yidhi acab uu maydhay jidhkiisii waa caadi uu cabbay caloosha iyo gudaha wixii xanuun kaga jiro dhanba bannaanka uga soo baxay uu soo kacay mar keliya xaaskiisii baa magaalada ka timiday way ku wareegtay iyadoo xishoonaysa markaa waxay tidhi oday ayuub la odhan jiray oo bukaan ahaa oo muddo 12 sano halkaa aan la joogay oo maanta aan ka tegey magaaladaan ugu maqnaay oo aan u shaqo tegey
miyuu dhintay ma dugaag baa qaatay waliba dhallinyarnimadiisiina adigu aad kuugu ekaayo formigiisii baad leedahay markaasuu yidhi ayuubu aniga buu ka yidhi ana ayuub ayuubkii aad kaga tegtay sariirta dusheeda ee jiifay ee kici kari lahaa waa isagii ducaan ducaynay ducadii baa ilaah noo aqbalay